kusoo dhawaada daawadayaal waa qaybtii saddexaad iyo sidoo kale diraasaadkan cilmi-nafsiyeed ku saabsanaa dumarka. Diraasadan waa tii 3 tobnaad oo aan wadaagno waxayna leedahay dumarku waxay bartaan hadalka, akhriska iyo isticmaalka weeraha si dhakhso ah marka loo eego ragga. Dumarka ayaa xawaare sare wax ku akhriya kana hadal badan marka loo eego ragga. Waa sida ay diraasadu sheegaysay. Diraasada 14 dumarku waxay u muuqdaan inay labada dhinac ee maskaxdooda u adeegsadaan xalinta dhibaatada halka ay raggu inta badan u adeegsadaan dhanka bidix ee maskaxdooda. Diraasada 15 dumarka ayaa ka hadla shucuur xoogaa ka badan aragtidooda. Tanina waxay qayb ahaan sabab u tahay dhicaamada maskaxda dumarku ay soo sideyso. Waa sida ay diraasadu sheegtay. Diraasada 16 dumarka ayaa in badan la xanuunsada walwalka uga yimaada bulshada marka loo eego ragga. Diraasada 17 dumarku waxay qaataan waqti dheer si ay go'aan u gaaraan marka loo fiiriyo ragga, laakiin marka ay go'aan gaaraan waxay u badan tahay inay ku sii dheganaadaan. Diraasada 18 kaftanku wuxuu la xiriiraa caqli iyo daacadnimo. Tanina waa sababta badanaba ay dumar badan ugu adeegsadaan sida ay ragga u soo jiitaan, ragga oo leh dareen wanaagsan oo kaftaneed.